بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتها بون داوديال إذا لهانتين ميل كستواد نقل صعوتان وبرنامج قارة أو أنو إذنكو تلقى لي مانتا إن أنو إذنكو ورئيسانو قدوميها حسبك وعود إسلام مركانا مشرحة مدحوينة حسبك إنجنير فيصل علي حسين وتقارنان فيصل علي ورابع داوديال waxaa aan weydiin doonaa su'aalo idinkuna line-ka telefoonka waad nagala soo qayb gali kartaan barnaamijkeena waxa aan ku wareysan doonaa gudoomiyaha booqasho uu ku tagay dalka Mexico Colombia iyo xiisadaha taagan ee wadankii hadda ka socda dhan kastaba insha Allah bismillaahi kariim aadi aad baad u mahadsan tahay injineer Faysal Ali Xuseen waana kaaga mahad celinayaa fursadda qaaliga ah ee aad na siisay maanta inaad aniga iyo dadweynaha nala wadaagto barnaamijka injineer Faysal Ali ugu horeyn intaynaan barnaamijka u guda gelin gudoomiye waxaad nooga warbixisaa Colombia safarka aad ku tagtay عند كاسو عسنتي فائدة أولى هي تلقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارتوحوا عسومة أنا كنت عسومة حسب بيهات حسومة الشخصي ماهن وحنا كان هاي حبين أوركا سوشيال ديمقراطس انترناشونال. وحوي أصحابتها سياسة دولة هاي سياسة أنا هين قولي قوست فوق أنا هين شيوعيتي بربرتهين ودمدا وحكم إذا إسكندنافيان كأو قبل السن سوشيال ديمقراطيك بارتي تليراو جرمان كيو مكا وحا إلا بقولي تضباطهم حسبه أي كتشرا وأدون كودم إلى جابان تشاينا كم إذا شو من كوميونست بعدين تشاينا marka doorka waxaan u tagnay waxa congress-ka 5 sano mar buu dhacaa waxa muhiimadda congress waxa weeyaan la doorto madaxdii waqtiga 5 sanadii marba doorto madaxda ururka wadista kii ka horeeyay wuxuu ka dhacay wadanka South Africa magaalada Cape Town kana wuxuu ka dhacay magaalada Cartagena oo Colombia marka waxa laga hadlaa madaxda la doorto hadana wixii marka arrimaha taagan maanta adduunka nabadgelyada iyo security iyo solidarity asxaabtaas iyo issues taagan Falastiiniinta iyo Israa'iilka iyo Saxaraha wadanka Saxaraha iyo Qobrus iyo issuesaasna waa laga hadlaa kala adduunka taagan international issues taa waa laga hadlaa marka anaga faa'iido weyn baynu haday alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye intaas oo wadan baan u helay access magacayga in Soomaaliya waxa la jirto xiriir network soo sameeyay South Africa soo sameeyay oo ka socday magaalada General Secretary wasiirka environmentka ee wadamada Chad Niger Burkina Faso Tanzania Afrikaanka ilaa ku jirto wadamada ku jiro badan ku yihiin wadamada xukunka gacanta ku haya baadhaya xisbiyada xaga kale waxaan ku soo baranay magaalada Chinese wasiirka waxa joogay international cooperation-ka oo jecel insha Allah ta'ala inaan xiriirkeedu soo socon doono Latin America ayaa wadan intaas oo wadan oo Chile kamid Colombia Mexico waxa hadee wadamada Carabta Morocco kamid Tunisia xusbiga badbaadiye Tunisia Arab Spring wadan qoraka badbaadi ayaa iska mid ahaa de marka Soomaaliland alxamdulillah rabbil caalamiin wa meelahan doonay insha Allah ta'ala inaanu i'tiraafka ka hoodino ka soo kacayna insha Allah ta'ala xusbihana faa'iidana runtii waxaad la kulanteen saaxiibo badan oo sida kuwa Laatiinka oo kale laga yaabo inay fikrad baan ka haysan Soomaaliland wadan kaliya oo inta ay Soomaalidu dhan u haysteen markii ay ka dhaadhiciseen ama la kulanteen maxaa ka dareenteen sidee u arkayeen والله هو ده وضعك السومالند aad looma iibgeyn laana waxa weeye waxa adduunka lagu bartaa magaalada ay meelaha ay dagaalo ka dhacaan iyo gaajooyinka iyo burcad baleedka iyo waxaasba lagu bartaa anigu insha Allah inta waan ka caafimaad qabnay
laakiin dal ahaana maanu dadaalkii la doonayay inaanu qadiyadeeda ka iibino nasiib daro waxaan arkaa inaynu aanan la gaarsiin halkii la doonayay laana wadan markaa aanu zero kasoo bilownay buu ahaa ictiraaf raadiskii iyo institution buildingkii mar lama wada samayn karo marka waxaan ku mashquulsanay marka hore in la dhiso horta haykalkii dowladnimo oo wasaaradihii la sameeyo oo hay-adihii kaa la sameeyo dee qaran lahaan jiro caalankii la sameeyo magaranaysa lacagtii la sameeyo dad intaa waan ku guuleysanay dumaraadiyadu waan ku guuleysanay haddaba iibgeynteydii ayaan in fact aan si la doonaya u dhicin insha allahu tacaalana hadda doorasho wixii ka dambeysa waxaan jeclay inaanu dowlad sameyso midnimo qarana oon Soomaaliya ka baabino macaadi maxaafid oo saddex cusub ay kasoo qayb galaan oo markaa waxyagii xuquuqdeeda doonano insha allahu tacaala godka kashaba ka dabagalo maamulka kordhino cadaaladda gaarsiino oon wax rasmi iyo caruurtooda u aayaan inaan dhignaan jecel insha allahu tacaala insha allahu tacaala runtii dalka Somaliland iminka nabad uu haystaa ictiraaf ma haysto mashaariic badan oo ay dawladda iminka joogta ku sheegtay horumarna way ka socdaan ishuuga u weynee hadda taagan ee laga waramaya waa ka shirkadan dekada berbere lagu wareejiyay iyo military base-ka hadda soo socda sidaad u aragtaa arrintaa inkastoo dadka qaar adiga laftarkaaga ay leeyihiin qayb uu ka yahay oo Faysal markasta oo laga wada hadlayo ama imaaraadka ay tagto xukuumaddu garab uu ku siiyo waan raaca anigu Soomaaliland ma garab siiya anigu Finland jooga oo qaxoonti ku ah oo Cabdiraxmaan Axmed Cali ilaahay xarsiile eriyaniyo ayaa la warka jays war dawladda u daayay waa 2 sanadood tiyo cigaal laga laalaado ayaan oran jiray daaya anigu waxaan doonay qaran baan doonayaa inaan asdeeto baan ku tagay jaamacad aan ku tagay dalkay ku soo bartay madax ka noqday qaranka miciisaan garanaya qurbahana waan aqaana anoo arday ah oo qaxoontiye baan joogay oo iska marka wax ku soo bartay marka inuu bini'aadamku qaran yeesho markaasuu sharaf yeelanaya markaan sharaf baan doonaya helo wax cunay aniga helo wax haday qiimaha ma leh uu iska tagay wax xaraan wuxuu qaatay laga waxyaa inuu aniga dawlad caruurteeda hesho aan ka soo kaxeeya dhulka asdariga ana Soomaalidu dhulka tagtaan kuma assimilation kuma qabto integration ma sameeyaan soo hindidoo kale dadkii halkan Ingiriiska yimi iyo ku yimi Soomaaliland ku yimi marbood yimaadeen iyagoo kuwaas waxay noqdeen Ingiriis waxbay ka qabsadeen ya carabtoo kale imaaraadkoo kale Soomaalida u horsatay reer Soomaaliga ah reer Soomaaliland waxba ka bay qabsan hindidii timo wal billionaires marka inuu meel ma qaban karno adduunka meel aan dhulkiinayn marka inuu dhulkiina hagaajisana marka aanu saasaan sameeyaa aanu mashruucani waxa weeye ana wadan la ixtiraafsiin manahay saaxiibiyaan u baahanahay shaqaalaan u baahanahay in shaqo helo dadkii investment maalgelin baan u baahanahay waxay ku celin yihiin ixtiraaf adduunka lama siiman karno heshiis marka hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu soo celiyay qiimihii uu dalkeedu lahaa wuxuu qiimihii Soomaaliland lahayd iyo Soomaaliba lahayd markii uu dagaalkii qabaa burburay ayaa la iska iloobay Soomaali istiraatiijiyada lahayd ee adduunku noqdo one access imanka security adduunku isbedelay qiimihii istiraatiijiyada lahayd dalkii ayaa soo noqday wala la xiisiyay taxiisi markii aan wadan baan leenahay ama ictiraaf baan leenahay dhaqaalaha u baahanay waa in xubin isweydaarsanaya marka horumar baad u aragtaa mashaariicdan uma arka waba tahay marka anigu dadkan qaylinayana waxa weeye dad aqoontoodu iyo dad islaamde opposition kuma aha in dawladdu waxa keentaba aad maaha waxa weeye in dawladda ku hagtid in cadaalad ku shaqeyso wixii wanaagsan ay sameeysan waa national waxyaalo wada leenahay waxyaalo wixii horumar ay dalka faa'iido u keenay sharaftiisa waa in wada iibinaa marka anigu marka ciyaal la joogin jiray meeyir buu doonaya marka ciyaal la joogin jiray waa substation markan kan marban kaliya ku ahaa macaarib ima kana uu qoro macaarib oo xisbi wadani dawladii ku jira oo isna xukuuma baarlamaanka aniga baarlamaanka iska tuwa isku ka dawlad adduunka kama dhicin nin dawladiisu macaarib dawlad qaybka waana ka baxda dawladda macaarib marka waxa la yiraahdo waxa ma yaqaano objective baan leeyahay objective in Soomaaliland dal noqoto
soomaali oo dhan ay sharaf yeelato waxaad carabka ku dhufatay in aad wadankii markuu qaran ahaa ee la isku jiray aad wax ku soo baratay sidoo kale waxaad ka ahayd madax oo waxaad soo qabatay xilal Soomaaliya kamid ahaa haddana waxaad tahay dadka ugu badan ee ololeeya inay kala go'do qarannimadii Soomaaliyeed maxaa kalifaytaa horta maanta dhibaatada haysata Soomaaliya waa isku darkii qaladka ugu weyn ee taariikhan ee dhacay waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliya isku daray wata maanta halkaa ina dhigtay weeye isku darkii ka dhacay Eritrea iyo Ethiopia isna qalad buu ahaa waa tila saxay isku darkii ka galay Senegal iyo Gambia qalad buu noqday waa tila saxay anu waxaan u arkaa qaladkaas dhacay ee xasuuqa keenay ee burburiyay jaceelkii Soomaaliyimo ee burburiyay Soomaali weynimadii ayaa horta waxaan waa dawadii Soomaaliyeed in la kala tago waa dawada geeska Afrika waxa anaga bariga wana waday waa bayaasha waday waxaad in shan Soomaali la keeno shantii Soomaali suurta gali weyday taasoo NFD Djibouti Soomaali inta maqasamaha Soomaaliya markaan waxaan arkaa inay tahay danta Soomaaliyeed waan weydiiyana madaxda Soomaaliya bal ana ugu fogaan Soomaaliland dhiga halkane maxay Soomaaliland dhibaato u leedahay Soomaaliya leema keenin ansar hadda la yeekeen la ilaa dhibaataas leedahay oo Soomaali u leedahay Faranka qaadla laakiin waxa doonsan waa justify garaysa halkan waxa weeye anagu maanta Soomaaliland gacantaan ku haynaa cadaalad waan keen doonaa insha Allah taala Soomaaliya jirin Soomaaliya ma jiro anu ninka Soomaali wuxuu iga garheliya markuu Soomaali mideeyo Soomaaliya Itaaliya laba dalbanayeen shan buu ka dhigay shan Soomaaliyeed ayaa ku dhigay oo reer u sameysano been ah rasuul ilaahay kaale waratin hagaaji tan ka inta ka baabisid dowlad goboleedka qabaal ku sameysana suurtagal ka heen markaas ay oran kartaa marka hadda ay timaadin way doodi ayada isasafay garaysan oo ku safay garayna goon istaagu inoo fiican yahay taayuu ogolo hadda ay u yiraahdina taa ku ogolaada laakiin la stock laakiin Allah maanta waxa weeye waxaasoo farmaajo wuxuu leeyahay Soomaaliland ku kaalaya waa qaladkan gelna weeye inanka farmaajo ku dhashay mooji ambagada ku dhashay amba galka ay soo anu wadankay uga talin kara waa qaladka aan doonayna saxo farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed oo la doortay yaa doortay waxa doortay shacabkiisa iyo baarlamaankiisa ku eekaado aniga soo igu talin waxa moodaa Soomaaliland inaanay ictiraaf ma aniga waa ictiraaf waxa weeye awoodigu ma leh waan ka xoog badnahay waan ka ciidan badnahay waan ka dawladeysanahay waan ka dumaraadisanahay inuu horta meeshiisa hagaajiyo ayaa weeye aniga markii soo hagaagto koonfire aan hadal soo nimaadna horta hadalku abu socdaa hadalku socdaa waxaan isku darsanay kala iyo wax isku darsan mayno deeqanci maxaa anu dalban haystaayo sida Kenya sida Ethiopia marban damca inaan wax kula yeesho markiina xasuuq ba yimi maxaan ku imooti fikranaya maxaad igu soo xirigelinaysaa adii haysa oo mordan state haysa marka waxa weeye in anaga qaladkii aan sameeynay la nagu dhaqdhaqaajiyo oo inaya anbo koloniyada madaxweyne aan heeno meer herge Muqdisho ah oo Muqdisho xitaa aan lagu ilaaliyo shisheeye in Soomaaliland ka hadla wax arkeen aqal xunata wartan hagaaji wali waxaan jeclaan kula hagaajiyo laakiin Soomaaliland ma jirtayo Soomaaliland dowlad goboleed iyo waxay ku hadlaan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo adduunku wuxuu u aqoonsan yahay inuu yahay madaxweyne Soomaaliya ma aqoonsan runta sheegaya Soomaali waxa qofku waa inuu dalkiisa ku xukumaa sharcigiisa ku socdaa dadkiisa ogol yahay oo madaxweyne yahay Soomaaliland aad baa looga hambaliyay habeenkii oo madaxtinimada anaba hambaliyay yar iyo weyn waa la hambaliyay inkastoo magaciisa ku wareereen maadaama aad Faysal oo tahay aqoon-yahan koonfurna ka soo shaqeeyay bal horta magaca Farmaajo way ku wareereen dadkii reer Soomaaliland afafka halkuu kaga jira Farmaajo maxay tahay Farmaajo farqo af Talyaani anu soo laga afka dhulka laga yaqaan xaga Farmaajo ya waa af Talyaani
haddii lay wareen warintooda aftalaan ma yaqaanaan marka la fasiro maxay noqonaysaa farmaajo farmaajo kabarku ah farmaajo kabar maaha ma baa kala cun jiro ha aniga xamar ku soo garanay farmaajo farmaajo waxa weeye cheese waka ha kala cun jiro waa exact waana nickname oo waa naanaystiisa waqti awoodi maxamed cabdullaahi wada hadal inaan la sii furtaan iminka diyaar maxamed cabdullaahi ma ku dikisa gaajto horta dalkiisa hala dalkan iyo madaxweynaha ku tahay 300 ku door 180 ku doorteen horta hagaajisto markuu ka hagaajiyo ayuu anaga noo iman karaa loonta Soomaaliya wada hadlay si 60 oo kale laakiin aan meeshiisii ba hagaajisan oo intaas oo challenge hor yaalaan oo dibaddu ka yimi oo dibadda ka yimi magaalada joogaa waa magaalo aanu grassroots support ku lahayn oo maadayaal ku nool yihiin intaasoo sanadood intaasoo baahiyo jiro ku naaxay dowlad la'aanta oo dowladda aan rabin oo systemka aan rabin beelay joogaan intaasoo wadano kala gacan ku leeyihiin oo wadanka arkay dantiisu inaan wadin ugu joogsanayo waxaasay horyaala marka dal nabada oo dumaraadiyada oo dadkii lahaa gacanta ku hayaan inuu sida xasan sheekh afka la soo galo ka afka la soo ciidan afka u galina anaga waa tahay wala 6 bilood gaarin haduu anaga naga hagaag waayo 6 months wala gaarin inaan batanka u qaban doono because waxa weey is a foreigner oo dibadda ka yimi goofka ma joogo goofkiisii maaha idab hayeesho kulligin laakiin dabadda ka timaadeen dalkiina waad jeceshiin waad maamuleysaan damaanu hargeysa magaaladeedii hargeysa laakiin ma ku shargay magaaladiisii maaha inta la ka qaxay goofreer bay noqotay in waa goofreer magaal goofreer si idab la hoojo taa intaasaynu kaga gudbaynaa Khartoum State muddo colaad baa soo socotay dhiig baa daatay waxa weeye wadan Somaliland ah ayaa Somaliland ku muranta dhinaca kale qayb kamida Puntland ba sheegata wada hadallo ayaa hadda furmay waxaad moodaa inay rajo wanaagsan ka soo socoto wada hadalladana adiga madax ka ahaa qaybta ugu weyn bal hadda wada hadallada nooga warano maxaa ka soo baxay maxaa si rajaad ka filaysaan horta dhiig dhacay ma jiro Khartoum Soomaaliya ku dhacay ma jiro hadda laga tawaayay magaalada Bohole ayaa mar accident ka dhacay nasiib darre wala isleeleen jiray ama ay hal sameeyeen jiray wala ka tay magaalada Bohole ma joogane oo maalin la isku diray wali arintaasna ay Soomaaliya u dhaman ahayn oo arinteeda doon gaar u galo ma joogane dagaal iska yimo Khartoum dowladii ma jiro laakiin dagaal beelaysan baa hada beelay reeraha islaaya ali gari waxa isleenaya magaalada iyo reerka istiliyay abaarsan waxa istiliyay qayaad baa istiliyay samakaab caliya faar cali istiliyay ismaana saad yoonis iyo baciida istiliyay qabaal soo jira laakiin Soomaaliland iyo Khartoum dagaal kama dhicin mana dagaalam karaan dagaalku ma fiicno wax yaga dialogue baan ku dhamaysanaa madaxweynaha hadda markaa dialogue furay على خليفة خاتم ومدحها يا سيارة وصاحب لما يسكتوا بها يقول بقى ما كان حمد شوقني وتركي محمد سيادة بقول بكرة سكرين شري بها هاي يا هنجرها كان مسكعة فرنلي حد أنا هذا كمية في عبد الله مريم أتينا هي لها وحنا نشعلنا إن نصوص أفكرنا خلاف كريس وما الحديدة قلنا لما تشرتين هي قرونا مالك سوى شيكتا كسمايا شيكانية شوبون كشيكانية مدو بشيكانية لكن أنا وحنا كمان قاعدين ضد شعبنا ورانا هايو واسك بروباغندا الشعب اللي مغشين يعني أنا حوالنا وانوشيا سياسة كمان قاعد كان حدودية وحدود انترناشنال حقوقنا كمان قاعد كان هو Soomaaliya iyadoo qabi ayuu dawladda istaqaanay oo reer isku dili jiray dawlad istaqaana anaga iyo reerkaasna laakiin wali dagaal ma jiro inaan maxaa nagu dagaalamaynaaba anagu ismaalintii aan nidhi gooleen isku taan soo ceshinay dawladnimadii Soomaali maanta aan diinay inta ay isdilisay wax gacan nooga tago xumaanay xitaa ma jirto duca waxaan ahayn inta uu ducaynaa iyo waxa la kici waayana intaan xaasidiya kolba ilaahay magaasoo batan ku qabanay ha cadeynayeen in xaasidayaan de wax ka heshiis ku maaha wax ay heshiis ku yihiin oo ahayn Soomaaliya soo soo qaadna ma laakiin anagu Soomaaliya oo xumaan ma hayno wixii nagu dhacayna qabiil uma haysanay dawladii markaa taagneed maanta Soomaaliland reerku Maxamed Siyaad ba ka soo jeeday
waa reeraha lagu jecel yahay waxaa la kala saaray maxamed siyaad bare iyo reerka dawladdii waxaa geysatay Somaliland oo ku jirtay Soomaaliya ku jirtay system buu ahaa systemku uu tagay laakiin Soomaali cuduraan u qabna ma jirto xumaan uma qabno maalinta isdilayna xabash dishan anaga noo soo qaxay maantana bacmushirka badan oo dhan iyaga haysta marka waxa weeye waa hagaajisantooda anaguna roolkii aan ka ciyaarno ah in isku soo jiidno la talino waa kun raadkayga marayaan waxay aqalkii sare samaysteen oo laakiin hagaagsaneen ya laba gurbe samaysteen saddex cusub isbreyn samaystaan way naga dayanayaan wanaagii inta ay ka badan u talina laakiin waxa weeye marka hore in naqiraan in dawladda heen marka hore naqirimaayaan in la naxasuuqina dirimaayaan jiino sano u dhacay in hadda dawladnahay shaqayso adduunka la macsan naqirimaayaan iyada kan ka shaqeeya media oo haya anaga waxaan ugu shaamtaan dawladda goboleedka Soomaaliya beera qaran Soomaaliya magac soo marin kareen Puntland way leeyihiin balaa ku dhaariyay marka waxay culture madax laga haystaa anaga magaca hortooda la oran jiray British Somaliland ay hadda noo quuri kareen marka waxa weeye hadaan lagu habsaamin Somaliland dhulkeedii bay joogtaa anaga taayada baan cuslaysay in maanta dhaqaalaha korino tacliinta korino wixii aanu ka dagaalnay iska saarno oo dawlad cadaalad ku shaqeyno ku fikrayna iyaguna wuxuu ka hagaajisteen Soomaalina maanta si ku jirto haddaanay tashanin magac Soomaali baabaaya laana ceebta Soomaali ku dhacda way nagu wada dhacaysa halka kaga qorna reer qabiilku Soomaaliya kaga qoran nagu wada qoran marka inaan ka naxno codadkiina abaartaas soo noqonaysa waa man made ilaahay ma sameeyay meeshii dawlad xuma jirto meeshii dawlad aan jirin ay abaar ku dhacaan anaga waa bayra isa taawasho daro ee meeshii jirta marka inaan maanta Soomaali in fidii halkan bay joogto oo fiican tahay kaliishana oo fiican yahay Jabuuti way fiican tahay Soomaali qaar baa hagaajinayo degaro way hagaagsan tahay Soomaaliya waa okay inaan isku tagno oo hagaajino halkay naga xun oo Soomaaliya hagaajino ayaa waajibkeena weey laakiin lagu habsaamo Somaliland oo yaa Soomaaliya xumay halka laga xiro waxa Ilaahay baa subxaanahu wa ta'ala ayaa wax xiri kale maxamed saad baraha dabcayno SNM afar injil la ku sheegi jiro oo kii isaga injirtii yeeshay ee si qaxoonti noqday marka wadadii lagu jabay lama maree aan wado wanaagsan samaysan madaxweynaha yar ee iminka qabsaday Soomaaliya hadda wax qamu haynin meesha wada hadaladii hore ee lala furay Soomaaliyana natiijada saasi kama soo bixin iminka isagii iyadoo aan warba laga hayn ina ka hor dhacdaan miyay tahay oo asaadaalisan inaanu garaabayn ama inaan ictiraafin ama aan waxba idin horta ninka ku wareera waa inaan heli jirin anu madaxda Soomaaliya waqti iska ma khasaaray lana waxa weeye tiisa waa cuslaysay ma imkan in isaga la qabano wax bisayna anaga aflagaad noo tagto in wax la qabano waa jecelahay inuu guuleystana waa jecelahay halka naga hagaajiyo lana waxaan ugu baahanahay baarjina waxa leena oo la gorgortino la kala baxno ayaan heshiisanahay laakiin waxa weeye isna waa inuu ogaado reality on the ground inuu si xasan sheekh wadahadalada horena sheekh Sharif meel fiican u mariyay meel wanaagsan noo mariyay nimanka tan xumeeyay anaga na xumeeyay waa kuwii loo bixiyay dama jadiidka in kaara ku dhacday Ilaahayna dhaafiyay moogtay ee dhulkina boobi baa leeyahay lacagtii cunay baa leeyahay daari iibiye baa leeyahay in kaartii Soomaaliya ku dhacday isna dad in kaarta iska ilaaliyo dhulkiisa hagaajisto Somaliland de anaga gacanta ku hayna ana waan isnaqaana farmaajo oo wada hadii jirnay waa kulanay 2014 meelaha hadda qoladiisa ma ku soo baxay waa tahniinay shaqaysa qabso Soomaaliya iskaylo ana hub laba arrimood oo ka fiicnaanaya xasan sheekh ومن واحد أنا كل نكرهم نقول يرانيو أو أنا نقين مسكتيسو بعق وطلب على Somaliland وجهي تاريخ يكون عظيم يصير هنشرتي وكانيا حسن ما وجه قلت هذه مسؤول ليكسين شرتي هرجيسة يكون قبل شرتي ليكسين شرتي بين شركات بين هذا قولي قلت مساكي صلوا قبليها هرجيسة اللي قلت مقنيه تصوير غاني ما كان ما يقان Somaliland سالو كريتيجي Somaliland ما يقانو لكن سو فرماجة هو بدأت إنه فرماجة
إن شاء الله تعالى وعن شاء الله وأنا أبتنا وأنا نهايو هويدي ورير سومان الموت سجي أبيه بفهمه ما كل جو كفي عنانا يا بيلا تاني ساسد صاد علينا إن شاء الله إن شاء الله أنت أصلا كجب حنا سومالان دورش هذا السوقي مرر هورنا ولا كردي حدنا ولا كردي سداد وأركتان حسب معارضهان إذن بدل لا وتان كونا سومالان بريت أبار حمان حيسي الله سبحانه وتعالى أبارتنا كسارة بريت سبت أيها دولتي مكان سعي كويت ديارات الله ودنا وصل درس إن شاء الله تعالى ما أنت أسوء قاعدي أرنتن ليلها كل إسكو عذر سومالان بالنقضي وحنا كيني وحوي ودستورك يا غيرنا نبص الدون وصنع سنيا marka anagu hadaan u cudnahay horta dastuurkan furna insha Allah taala meelaha madmadowga ka soo gali waan ku hagaajinayna laakiin waa barmado xun oo nagu taala kul iskaas maalinta dhawaato guurtida si fiican bay yeeleen oo bil qore ku dareen intii aan ku heshiinay laakiin saddex xusbi labada golaha hoose ee deegaanka iyo guurtida iyo wakiilada ka yeeleen wax la ogolaan karaya maaha dawladani hadday imanka maxkamad geen weydo oo waxaan ka tuuri weydo anigu kulba haddaan soo baxno sidii Trump qaranka u hore ku sameynaya laba waa kala diraya I will dissolve the line ee guurtida waa baabinina guurtida was 2 months ku sameynaa guurtida lacag naguma joogto waa reer kastoo keen qofkii aad doonaysay tirada waa التليفون بنسيت ديننا وان كسو نقونينا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعاقي يالك كسو هدليسو ولا المقعاي هو عبد السمد زيد علي وحن خلصوا هذا يا مقالة بربراء سومالي لان بربراءات بانكوسو دوينيا برنامجك فيصل علي ورابع قدوميها حسبك أعد إسلام مركانا waxaan doonayaa walaalin madaxweynaha ayaa marti ku ah gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah UCID mudane Faysal Cali Waraabe su'aashaadu waa inay ku koobnaataa tobagyada aanu ka hadlaynay waayahay aad baan u daawanayaa tobikana waa la socdaa walaal gudoomiyaha waxaan weydiinayaa soo hadalqaadka uu soo hadal qaaday wada hadaladii uu bilaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxa uu kamid ahaa gudoomiyuhu guddigii wada hadalada Soomaaliland u matalayay waxaynu walaal ognahay wada hadaladaasi inay fashilmeen tiraba dhowr jeer qodobadii lagu heshiiyey marka gudoomiyaha waxaan weydiinayaa isagoo ka duulaya qodobadii hore maadaama ay fashilmeen annagu reer Soomaaliland ahaan waxaanu aaminsanahay in qodobada qaar kamida personal interest lagu daray interest maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa shakhsiyaadka tegayay labada dhinacba ha ahaadaan dana gaar oo ay iyagu sitaan mid waliba ayay miiska saarayeen ma madaxda Soomaaliland bad ka hadlaysaa markaa labada dhinacba marka la eego labada dhinacba sida ay adiga kula tahay weeye markaa waxa weydiinaya gudoomiyaha ilaa hadda ma jiraan qorshe cad oo Soomaaliland ahaan aan ognahay shacbiga oo u diyaarsan gudoomiyaha iyo guddida ku jira ee wada hadalada Soomaaliland ka baxay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad baad mahadsantahay sida fiican ee aad noogu soo koobtay horta waxa weeye maxamedo waxa weeye wada hadalada ilaa intii ay dawladda xasan sheekh timi horteed si fiican bay u socdeen xasan sheekh markuu yimi laba qodob baa lagu heshiiyey labadii qodob baa uu ka baxay mid waxay ahayd in Somaliland iyo Soomaaliya wixii dhaqaale ah ee adduunku bixinayo in qolo kasta tooskeedu hesha oo siyaasadeen taas oo agtii lagu fadhiisay special arrangement loo sameeyay deelkii loo jiray Brussels deal Soomaali compact loo sameeyay ka uu ka baxay oo waxa ka mid ah inuu soo taagay
berbera corridor kalabaad uu ka baxay waxa weye kii isgaarsiinta isna turkiga lagu galay marka wax personal interest ma jirin labadii dhinac ee wada hadlaya Soomaaliya ayaa dhinacii Soomaaliya ee dawladda damajadiidka la baxday aanay daacad ka noqon wada hadaladii oo damacday undermine gareysay solidarity markii uu dambeysay waa kii nimanka reer bishii March wada hadaladii keenay dadka reer Soomaaliland ninka maareeya la ilaahay ka mid ahaayeen halkaas ku burburay laakiin mid wax dana shakhsi aanu kuma arkin iminkan waxa weeye haddii halkan iminka ay hagaagso oo gruubka dhalinyarta ee maka qabtay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ay team wanaagsan keenaan koo waxa weeye in horta markii hore wixii lagu heshiiyey inay ixtiraamaan ay ka koowa ta horeysa waxaan jecelahay insha Allah taala inay lesson learning noqon doonto qaladkii Xasan Sheekh iyo gruubkiisu sameeyay inay ka leexan doonaan ma jecel aad buu mahadsan yahay Maxamed oo nagala soo hadlayay berbera waxaan ku noqonaynaa line-ka telefoonada dadkan jaanisiinayna hello assalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlaysid magacayga waxaa dhahaa Saafiya aad baan ku soo dhaweynaya halkaad ka soo hadlaysaa waxaan ka saaraa Manchester baayo haye macaan maxaad kaga qayb galaysaa barnaamijka deeqa waa mahadsan tahay barnaamijka waxaan uga qayb galaa walaalkay Faysal Cali walaa wax badan raadinayay inaan su'aal weydiiyo soo daa horta su'aalaha waa badan laakiin hal su'aal ayaan qabaa ugu horeyso waxaan rabaa inaan weydiiyo Faysal Cali Waraabe inuu iiga jawaabo Soomaaliland waxay dhahaan calanka Soomaaliya aan geynay marka calanka Soomaaliya ma badan yahay marka waa kii aan wada kii oo xornimada la qaatay miya I don't know Soomaaliland calankay geysaa hortina ogaad su'aashaas kow dhex ma maqlayo waa ku maqlaynaa macaanay haye su'aasha kale noo soo koob dadkan ugu badanay kale waxa waaye farmaajo waxa la dhahaa waa jiis Soomaali ahaana waa maxaa la dhahaa burcad subaga laga saar caanaha waay asma Faysal Cali Waraabe dhaha maxaa uu yaabaa farmaajo hala yaabina bowana nees bay aabis la dhiga adiga Faysal Cali Waraabe Waraabe jiis yaa fiican marka wax ku sheega Faysal Cali Waraabe hal mukulaal oo koonfur intee noosha xornimada meesid hal mukulaal oo reer koonfur inta helays ee joogto xornimada helaysid waxaan ka xumahay horta run ahaantii in aad sheekada cadhag geliso ama aad su'aashaada aad ka dhigto dagaal su'aal furan iyo fikir waa la isweydaarsan karaa laakiin barnaamijka uma aanan samaynin in lagu googaalaysto aad iyo aad baan u mahadsan tahay barnaamijkeeni baan ku noqonaynaa su'aasha hore ee ay ku weydiisay ee ah calanka ayaanu geynay taas ayaa aniga macquul ila ah waxay inta sheegaysaa su'aal fiican baa farmaajana Waraabe farmaajo ka fiicanna ku qaray mana caynta ma kan calanka waa runteeda waa kelmadda calankan geynay waxay u jeedaan dawladnimadii ayaanu geynay calan la qaaday oo la geeyay oo meesha la geeyay ma jireen kii de Soomaaliya saameyso baan isku raacnay inuu inoo noqdo calan anu markaa mid waa lahayn laakiin ka saar ila waxa u jeedaan qarannimadii iyo madax banaanadii intaanu baabiinay ayaanu Soomaali ku darsanay oo jeedaan calan la qaado la geeyay ma jiro aad baan u salaamayaa inanta runtii caadifad ayaa ka muuqatay waxaan jeclahay inay kaftan xanaf la'aana barnaamijka ay nagala qayb gasho gudoomiyuhuna si wanaagsan buu kuugu jawaabay farmaajo ayaa Waraabaha ka fiican buu ku yiri burcadka aad sheegtay calankana uu ku sharaxay siday ahayd raalli ay naga ahaan doontaa inta inay ku qanacday baan filayaa line-ka xiga ayaan u baaqayaa hello assalaamu calaykum hello waa tahay barnaamijkeeni baan dib ugu noqonaynaa seerkaasaan ka horreysiinaynaa hello assalaamu calaykum عليكم السلام magacaaga iyo meeshaad ka soo hadlayso London baa ka soo hadlay ayaan baa leedahay magacaagana ayaan aad baan ku soo dhaweynayaa waxaan rabaa Faysal Cali Waraabe horta salaamaya ku salaamayna anaguna markasta baan ugu taageersanaa anigoo reer koonfur ah marka waxaan weydiiyaa su'aasha Faysal Cali Waraabe inuu marna Soomaaliya amaano marna Somaliland oo amaano
oo dhaho marna Soomaaliya fiican marna anaga fiican inuu dhaho marka Soomaaliya ceeb kama sheegin laakiin isaga ayaa markii hore uu ka sheegi jiray laakiin siyaasad uu ka sheegi karayaa laakiin anaga hadaan rekoofur hadaan horta Somaliland waa dad walaalaheena ma ayna waxba ma dhahno laakiin koonfur yani rekoofurka adinka hadaa Somaliland hadoo Faysal Cali Waraabe yahay uu dacayadeeyaa waxba uu ka sheegay wuxuu dhawayna baabi'iyeen dadku way isdilaan way heshiiyaan laakiin Soomaaliya dadka dhan way isdagaali jireen Somaliland bas lagu ma soo doorin rekoofurka waa la qaar badan dhinteen oo dad ku jira bilyan isa joogan marka hadii ummadii uqdad inta la gelsho maalin kasta la dhaad ummadii ciyaalkii soo koraayay iyo dhalinyaradii uqdad lagu beero la Soomaaliya idin laaysay soo dhibaato ma hano ayagana la dhaho oo Ethiopian ko kale la dhaw waa walaalihiin wad maadsan tahay uu ku jawaabay doona طبعا oran Soomaaliya waa tan sheegay system buu hawaani dawlad baad aan ka midna xitaa baan ku yiri wixii geystay dhibaatada marka ceebna uma qabno xumaan uma qabno waa tan sheegay hore waan soo horeysiyay waxa weeye uma aqoon danteeda kuma jirto inaan mar damba talada dalkeega ama cid la wadaagno anigu 7 caruur wata oo mishan bilood baan qaxay waxaan u qaxaynaa waxa la isirhaan baa la idiliyay oo jasiira qeyrka lagu aasay oo diyaarado la dhacay kuwi kale oo u baxeen Ethiopia marka ay igu dileen dawlad xumo iyo gacan diidnimo ee waxa qabiil baa lagu diliyay isirhaan inaan mar daba caruurta taas ku dhicin never again sidii yahuud oo kale holocaust ku dhacay ayaa horta anu way taariikhdan wadnaa badbaadada caruurteeda ku jirta inaan Soomaali mar dambe inaan dalka aan taladeeda ila yeelan laakiin Soomaali ma nabcin waan jecelahay isku mid baan nahay shanta Soomaali waa isku jiqura amba Djibouti ahaado amba NFD ahaado amba hada Kenya ahaado Soomaaliya amba Soomaaliya dad isku qoranahay oo mid qoranahay laakiin waxaan arkaa system baan noqonay waan isqaban kar weynay wanaag baan isku tagnay xumaan bi isku bedelay wanaagii iyo wanaagii aan keenay ayaa la naga faa'iideystay aabayaasha keenan ayaa naga faa'iideystay xumaan nagu bedelay Ethiopia la dagaalamay dadka u dagaalamay waxa ahayn dadka waqooyiga naftooda horay Soomaali xumaan wiil la nagu bedelin abtisiima la nagu dilay dib nagu dhici mayso kuriina hagaajisa aan la hagaajino laakiin tiina maanta u baahan in la hagaajiyo Soomaaliya dhanba u baahan wada arto Yurub iyo Mareykan waa ajnabiga way iska saaraysaa qof kasta waxa uu gurigiisa hagaajisto oo maanta Yurub muslim oo dhan bay ka soo hortaagantay oo la leeyahay iska celiya inaan dhulkeena hagaajinaa weey marka ha ka dhiganina yani waqti iska khasaaranay Soomaaliland waqti geliya in gudihiisa hagaajisaan oo dawladda hadda sameysantay inay baabiiso dawlad goboleedka wadka Soomaaliyeed waxa weeye hooga Soomaaliyeed waa sharafta Soomaaliyeed waa qaybsanaanta Soomaaliyeed inay hagaajisaan anagu aan qabano oo iska taagnaanay gacan siino oo in sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya soo celino aqliga gelinayso Soomaali ayay kala qabanayaan Afrika Sri Lanka kala qabanaysa Sierra Leone Rwanda kala Burundi kala qabanaysa Ethiopia kala qabanaysa Kenya kala qabanaysa Mareykan kala qabanaya waxayna qabta ma waa tahay waa in inagu iskala qabanaa ayaan aad u mahadsan tahay Soomaali ma sano ayaanaba ka tir Soomaali doomiye waad mahadsan tahay ayaana way mahadsan tahay in la isu calool fayoobaado oo su'aalaha la isdhaafsado aad baan ugu faraxsanahay leenka xigaan ku noqonaynaa hello salaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah aad baan kuu soo dhaweynayaa walaal magacaaga waa idin salaamaya walaal adiga iyo odaygaba aad baan kuu salaamaya magacaaga noo horreysii waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdillaahi Pakistan jooga Maxamed oo aad baan kuu soo dhaweynayaa hore u gal barnaamijka waqtigaan noo soo haya Manchester baan rabaa inaan mid ban yar ka iraahdo idinku badin maayo haye marka ugu horeysa Faysal daawowe aslagaadada jooji ta kale ku xigtaa waxay tahay hadda tiri mar raba inay mar dambe igu dhacdo anigu reer qaatumaan ahay in caruurtaydu qaxdo rag bad hadaa caruurtooda laynaysaa ta saddexaad waxay tahay dee odayga wasiir u dhiib odayga ku raacay aad kaxaysay aflagaado runtii halkan laga sheegay ma jirto Soomaalinimo ayuun baa laga hadlayay iyo dood odayga
cali khaliif inaad aflagaadeysana aad iyo aad baan uga xumahay waayo karaamuu kaa mudan yahay inaad maaragtay ku sheegto wasiirha laga dhiga iyo odaybaa la kaxeeyey madaxweyne iskii u socda buu ahaa oo dad dhigiisa ah aya ka talin ugu jira injineer faysal cali waraabana wuu kuu jawaabi doonaa laakiin waxaan jeclahay in caadifadu ay ka maqnaato barnaamijka inta aan ku jiro ee su-aal iyo jawaab aynu isweydaarsano waxaan leeyahay maxamedow qaran baad u baahantay manchester ma lihid somaliland baad leedahay hadday soomaali ku darsana somaliland baad tahay hadday goonistoda tahay wuxuu ka shaqeynayaa cali aayitaankaaga ku shaqeynaya inta caruura ee isku eheltiin een iskuul gelin ee biyo haysan een cusbitaal haysan een shaqo haysan haddaad ka fekerayso saa madax kaga shirteen laakiin naftaadu baad ka fekeraysa inanka taleex jooga inanka buhooda jooga inanta buhooda jooga ee 25 sano aan dawlad arag een wada helin een biyo helin een caafimaad helin taa ka fekerinaysa marka cali khaliif professorkuna wuu fiican yahay ayaa waqtinaya ayaa caruurteena wasiiriye wax kasta wuu qalmaa aakhiradiisu hagaajinaya adna ilaahay ku soo hadiyo subxaanahu wa ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed aad baad u mahadsantahay waxaan jeclahay barnaamijyada dambe inaad adigoon cadhaysnayn nala soo hadasho aad baan kuu salaamaynaa gudoomiye waxaad moodaa waqtigii inuu ina soo kulaalayo cali khaliif jabuuti baad ku wada hadasheen go-aanadii rasmiga ahaa malaha weli ma aanay soo wada bixin laakiin waxaa jirtay inaad kusoo dhaweysay laascaanood adiga oo jabuuti kaga tegay magaaladiisiibuu ku socday cali khaliif iyo wadankiisii sababta aad adigu ugu soo dhaweysay laascaanood wax ma nooga sheegi karta saacada saaxiibkay wey waa saaxiibkay ana ka hortagay kusii sugayay reer kaala badan waan u dhignay ya waa sharafnay waan u mutaystaa shirka bisha 20 maarch insha Allah taala waxaanu soo afjari doonaa Somalilandna wax Allah waxay soo dhulka dhigi doontaa فرزيرو بان كارلي دونا سومالنا سيدي si xaq ah wax lagu qaybsan lahaa power sharing wanaagsan la samaysan lahaa oo qof kastaba keega Soomaaliland in uu leeg u jirsan lahaa yaan ku shaqeynaa insha Allah taala ma sha Allah oo noqon mid qura ma sha Allah oo midaysan in Soomaaliya iyadana u barakeyno isoo fariisano aan warqada furnin wanaagsan oo meherkan la isdhaafay la saamaxayo inaan kala qaadano insha Allah taala insha Allah taala laba wadano walaala oo igad ku wada jira oo ku wada jira United Nationska oo iscaawiya noqon doona billahi karim waxaan dib ugu noqonaynaa Somaliland arrinta Soomaaliya halkaas aan kaga baxaynaa waxaad u sharaxan tahay jagada madaxweynenimo ee xisbigaaga horena waa lagaaga guuleystay mana aad ku niyad jabin oo wali qarankaaga wad u sii shaqeynaysay haddana waad sharaxan tahay maxaad u malaynaysaa inaad ka baratay doorashooyinkii hore dalka ka soo dhacay kuwii lagaaga guuleystay kuwii ka sii horeeyay aad isleedahay waxbaad ku bedeli kartaa ama waad ku soo bixi kartaa horta waxa weeye labadii doorasho hore aan ku dhacay doorta ma khasaaray waan dhacay ceeb maaha uma qadgalisi dadacninayo helnibooda aad ku digagaroobaysa ani marna lagama footeen magaranaysaa barnaamij xumaan iyo magaranaysaa campaign xumaan iyo junior bana waxaa la tartamayay maxamed siiraayo 69 kii wasiir ahaa iyo madaxweyne riyaalo maqaaniisimkii oo haysta ayaan la tartamiyay odayga mar baa la riday axmed maxamed siiraayo baa la riday anoo keenay mar labaad riday ceeb ma ahayn ceeb maaha kuma aanay jimada aanu qaran baan doonayay kursi muhiimadeen ma ahayn intaas oo talada dalka waan ku jiray talada dalka waan ku jiro intan contribute gareyn Soomaaliland u taray iyo kuwa la doortay inta uu tan wax leeyahay inta badan tahay in Soomaaliland taqaano ilaa 92 gii Soomaaliland dibadda san uga shaqeeyay aad iyo ilaa nabadiisa uga shaqeeyay tan maanta nabadda la haysto waa tan bari ka shaqeynay maanta waxa weeye Soomaaliland qalfoof baa dhisan systemkii uu sameeyay frameworkii aanu waxaan gelinayaa naftii baan gelinayaa insha Allah taala hilibkii baan gelinayaa dhiigii baan gelinayaa insha Allah taala reform way ma ku sameeyay Soomaaliland waxa weeye sharci ayay ku shaqeyn doontaa maanta inta leeg baad ka qabtaa inaad xisbigaaga ku soo baxaad madaxweynaha maanta waa maalinteedii billahi kariim xaq waxa weeye laba cusub yihiin ayuu marmar ha dhaceen aan odagana mar saddexaad isku raacin ma yeelato dadka wax xishoodaan moogtahay experience kana experience ama Soomaaliland
waxaan ahay maanta oo mulusa wax kastoo meesha wax ka xun oo dhan tuulo aanan istaagin ma jirto waan aqaanaa marka doorkan waa doorkayga insha allah haddaan soo baxana aan Soomaaliya waxaan ka qabanaya Soomaaliya ma nin ku joogsanaya halkan meeyay Soomaaliya waxaan ka qabanaya saaxiibadayda Soomaaliya ku leeyahay kuwa Soomaaliya ku leeyahay kuwa Soomaaliya badan lama afrika jir baan ku tagay qolada aan siyaasi baan inay laakiin saaxiibadayda aan dhalinyarteeda wada ciyaar gudi jirnay ciyaaraysa waxa Soomaaliya joogaan marka anuu labada bridge-kii baan isku xiriyay waan Soomaaliya sharafteena soo celinaa insha Allah ta'ala waxba inaga xumaan maayaan reer Soomaaliya waxaan leeyahay qabiilka daaya maanta Soomaaliya qabiilka ayay u soo baxday hadda rag baan u geeyay maxkamad oo sharciga iyo xusbaan ka baxnayo reerii baa soo abaabuliyay haddana ma su'aashaas haddaan ku weydiiyo xildhibaano golaha deegaanka ah oo xisbiga u cud kamid ahaa ayaa xisbigaaga ka baxay maxkamad ayaa geyseen واي محي تاي سببتها وجيسين يعني اختيار لهاي نو فريدم أنا ضدكوا لهاي اختيار ما لها عبد الرحمن أنا سوق قدومي ما شرع درك وفنيا مركا ما شرع الدهر اللي سكوا هذا يسوع حزبي وكل شراء حزبي غي وضني تورشدي موجين البرلمان كراسيكم على البرلمان إنه حزبي أنا برا كراسيكو يشوا ارتوا قدر إنه قدومي هذا إسلام مركزنا هذا معارض قدومي وشرع در كوني مقرعنا ارتوا شرع در لكن عبد الرحمن بريقا دولته قرب كهيزدو شرعي دعوتي أنا جيني قدومي محكمة لو يريد العكس واسية قدومي مركز شو إنه ريجستر كريم واي هاو ريجستر كريم بعد كيس كاس لكن ما يا هاو ريجستر دولتي مركز تاجني دولتي مركز كوفي معين دولتي هذا تاجون بهذا دولة كل مية يلا صحيح محل وعد دينا يا مركز دولة كل مية نتريا لو ريجسترين وانا أنا عدينا مركز محكمة نقطة ما أنت الثاني وحوي إن ماذا مركز وربع سيستم كان يكون شقين السومال وحوي مير كهدو حس مركز مير كا بريستل وحلا يا بينهم كونسيرتيفيكين وليبر كي يلا يلا بريستل واحد حكومة ليبر كا ما حكومته كونسيرتيف واحد قبيلة إن أنا حكومة به مير كعدبوها بربرة وحوي إن أنا حكومة به لا سعارة إن أنا حكومة به لكن ما أنا تنصوص عنا يسكود حادرين مكان صاي بدحتويده وأنا نقل سوتشري ما بعرف عبصم كبربرة شماله يسوريين مشرحة أيوه حفظ قبيس أبصر ويروح كورجو حنجلية كل مية هجي يوتجين على مسارنا بيدي وروق على ذيك تشوف شرع دل كمية كقرنتها هاي ما الشرع يقول إن حل بانكم شرع حوي سنة كقدم بيا سنة كقدم بيا دور الشهور عايزه يقف مدة ما يسوى شرحيه أيوه حقيقتي كأنه حسب تونس كسوى شرحه السنة كقدم بيا مركها واحد من إنه الشرع بان مرنا لكن إنه العقد طلع بحيو اللي يراها في أضياشو عايز فيس على ورابي يسوي تاجان صباحنا في بربنا وحنا أضياش بربنا وتعمق عيبة وحكى صوب حيبة في بربنا عاية وأنا تذكر ونكسناي عجالسي محمد حجمنا عجالوي جوبني ملي سوي زمان وحنسير هي ساحل تجوبني ملي هسكت قاعدين وحال كل ما أولهم وصوف رئيسنا سايو هدي تكتب ما ضوى عايتمسان هدي سلت ما ضوى عايتمسان هدي تماضى حسب يسقبسوا عايتمسان ده تاني ما وفينا iyaguna waxay leeyihiin waxana laga weydiiyay labaatan Soomaali laan gobol noqotay walba gobolkiisa wax laga weydiiyay dawlad sharci ba marinayay anu hadaan ina irdi ka saarno meesha nin reer Hargeysa tagi maayo inaan kala hor wax imanaya oon ku xigeenkiisi leeska oo reer saaxil ba imanaya oo deesay dacwoonaya anu ba dacwoonaya ninkii dacwoonaya waragii reseefka ku xidhnaa ee defoodkooda ku soo baxeen waxaad sheegtay in qabyaalada laga daayo aniga ciidagalay ma qabtee Soomaaliland baan wahay ku abtirsadaa Soomaaliland ciidagalo naga qabta yani macaaqil bay qaban karaa waxa sharci bay qaban karaa nin reer Soomaaliland aan ahay marka waxa leeyahay berbera abtiyan in ka hada tifida ka hadlisan ee ka aflagaadeynaysan madaxweynaha ba caaysan anagii baan caaysan tameen ay tanam sidii reexamrkeenu isku soo furtay kamar reexamrka la sheegay wala iga hadeen dumar reexamrka loo jeeray kuma qala sheeko Faisal hadaan kula kaftamo gabadhaadu waxay ka soo jeedaa goboladaas koonfureed adigana reer xamarkii way ku yeeriyanayaan adiguna inta waxaad ku jirtaa hadalkooda
siday dareentaa marka xaafadda isugu timaadaan dumarku waa dhaxdin baa la yidhi maogtahay Haye. oo markay maaha iyo reer xamar oo reer Soomaaliya way noqotay reer Soomaaliya laakiin waxaa la yidhi jirkii lahaa iyo jiriid kama ما qoso والله وي ما دور ترى قلت اسكت دad كانوا waxaan dadka waan saxaya gaman ana ka saxayo badan moogti ma saxma marka taas way taas sharciga hala raaco Soomaaliya qabiilka iska tahay qabyaaladii Soomaaliya waxay fariisay Soomaaliya bataba intu kudi waa ummad qole aan dadka qabyaaladaysa waa ummad qole dadka aan xasiis waa ummad qole dadka magac isku ogoleen haddaad ku soo baxdo jagada madaxweynenimo sharci ma ka soo saaraysaa qabiilkan inaad ragaadiyo adduunka ilaahay aan soo sheegaya haddaan dalka qabto qabiil waan aasina qabiil waa baabaayna laan waxaan adkayna dawladnimada meeshii qabiil jooga oo meeshii dawladda ay tahay markuu gacanku cirkaa mariyay mad caaqil maqli jirtay لا مقصد ما مقصد السلطان ما مقصد إنه يصير تاجين مشروع هالكي برسمان هالكي محمد سعد بره و1970 كسر نقضي والله آسى يا قبيلك الله صبح منها لكن هالكي أصلا كل آسى دي لا يكذبوا فيصل علي حسين فيصل علي ورابي أي ذكر هير وقوي كوي قالنا qolyahan imika aad is hayseen na marka ay sheegayaan Faysal Ali Waraabe Faysal Ali Durwaabe yiraahdaan labadu waa isku mid maxaad ku kala jeceshay adigu Faysal Ali Durwaabe Faysal Ali Waraabe ma hado ninku qofku haduu fooxina waa Durwaabe hay haduu Fariid yahay waa Waraabe way maga Durwaaga reer galoo marmar ilaaha baa waa ninkiina ina Ali Durwaabe ilaano iyo reer galoo war kaftanay waa ogolahay laakiin inta kale كما أقولي مركا ورابها قد كوكل ورابها الحمد لله هو كي ما فهمني وحو قال يا هل كان وحا كهوريا لا هنقول الحمد لله مالها سوماليدا قارنا مقعيه كلا u yaqaanaan mana dhigtid hangoolkan hadaad suur sidatay iyo hadaad khamiis sidatay iyo hadaad shir joogto maxaad u sidatay hangoolkan aad mar qura wiilaa hangoolkan 95 kiiba la ii diibay magaalada Gaashaamo markaan ahaa gudda nabadda markii saal igu soo diibay ayaa ilaahay message ii soo diray WhatsApp ku igu soo diray hawta ilaahay marka tiiban u haya markii tiimaado insha Allah ayaan sheegi doonaa insha Allah yaa ii soo diray batri ninba isi ninba ku siiyay raay igu soo dhacay raay dhag raay ba ku soo dhacay rabbi ah marka aad gaadho muhiimadaada ayaan sheegaya marka ayaad sheegi doontaa haddii ilaahay ka dhigo aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxa aan ku faraxsanahay inaynu inaga iyo dadweynuhuba aynu wadaagno maanta barnaamijkan daawadayaal waxa iga xasuusin ah 11 bisha in sida aad shaashadaha ka arki doontaan shaashada ku qoran uu hadli doono gudoomiyaha isla markaana ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga Uxud Faysal Ali Xuseen goobaha halkaas ku qoran ayaad kaga soo qayb gali doontaan shir ballaaran oo loo dhan yahay dhamaan ummadda reer Somaliland iyo reer Soomaaliya ba cidii lagu casuumayo ciwaanada iyo telefoonada shaashada ku qoran ayaad kala socon doontaan gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan leh ee aad noo soo sharaftay waana kaaga mahad celinaya waa mahadsan deeqa ugu dambeyntii maxaa fariin aad gudbinaysaa waxaan ugu gudbinayaa dalka martida dhulka martida loo yahay si wanaagsan u jooga dadka idin marti geliyay anuu markaan qaxay 7 caruuras waqti 9 baaban 7 ahayn baraf baa dhacay meel baa la seexiyay sharci baa la siiyay jaamacad baa loo qalaaday inuu dadkan dana aan xumayno oo nagu ceeb idinku dadka idin degan xumaynayna magaca muslimku islaamku waa peace waa nabadgelyo magaca inaga rijeynina Soomaaliya waliba inaga adduunku si fiican bay noo qabtay waad arkamad Suuriya waxa haysta darigana waan soo qaxnay dadku si fiican bay noo qabtay marka inaan wadamada joogno sharafno oo sharcigooda ilaalino inaan kala dardaarmaya dalkiinana si maxkamadaha u hadlinaya dalkiina hagaajisto wanaag ku contribute gareeyo xumaan ku contribute gareeyaan dabka hashidina nabadda ka shaqeeya iyo wanaag aad iyo aad baad mahadsan tahay daawadayaal barnaamijkeeni oo aan jeclahay inaad ka wada faa'iideysateen waxa aan ka faa'iideysan doonaa oo aan tagi doonaa goobta gudoomiyuhu uu ka hadli doono 11 bisha iyadoo aan loo kala haraynin Somaliland iyo Soomaaliya oo dhan waxa aan jeclahay halka inaan su'aalo iyo jawaabo qofkii uu ceel qaba wuxuu weydiin lahaana uu ku weydiin doono mikrofoonada la isdhaafsan doono
aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiye Faysal Cali Xuseen musharaxa madaxweynaha xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ucud intii niina dhageysanaysay intii telefoonada noo soo dirtay intuu barnaamijkani dhaafay YouTube-ka iyo barta Facebook aan ku leenahay ayay ka dheehan doonaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin soo horfadhiisigiina iyo dhageysigiina iyo telefoonada aad noo soo dirteen aad baan idin salaamayaa intaan ku kulmayno barnaamij kan oo kala ah waxaan idinkaga tegaynaa aniga iyo injineer gudoomiye Faysal Cali Xuseen sidaa iyo habeen wanaagsan